kusoo dhawaada codka ubax. maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc aad u xasaasi ah aadna muhiim u ah bulshada soomaalidana kusoo badanaya gaar ahaan Somaliland. waxaan ka hadlaynaa daroogooyinka iyo saameynta ay ku leeyihiin dhalinyarta iyo bulshada, inagoo markaa ka eegi doona sababaha looga hadli waayey, xogta aan la wada haynin, qaadka daroogooyinka ma ku jira sharci ahaan, sida loo isticmaalaa daawooyinka haddii iyaga laftoodu waa dee daroogooyin bay noqonayaan haddii si qaldan loo isticmaalo. waxaynala jooga Guuleed Dafaac oo ah qareen, waxaynala joogtaa Zaynab Muuse Jaamac oo ah doctor, waxaynala joogtaa Hibaaq Cabdilaahi Siciid Hibaaq Laari oo ah iyaduna maclimad. marka hore inta aynaan gelin su-aalaha kale, Guuleed, isa soo taraya ee daroogooyinku ay kusoo badanayaan bulshadu, dhankee laga arkay statistics maadaama aynaan haynin saxa, xaggee laga dheegan karaa warbixintaas? bismillaah, mahadsantahay. laba meelood baa caadiyan lagu ogaan karaa. meelna waa goobaha caafimaadka, meelna waxa weeyaan goobaha la xidhiidha sharciga. goobahan anigu ogahay markaa aan ka dareenay inay soo kordhaysaa waa maxkamadaha, oo tirada ugu badan ee dembi lagu soo oogaya ay yihiin dad dhalinyaro waxaa jira dad biliga 20aadka ku jira ama 12 jir ah, oo wax lagu haystaan ayaba yihiin qeybaha kala duwan ee draaga ama dunuubta ay sababtay ama si uun u keentay draag, sida tusaale ahaan maadaama aanay lacag haysanin inay dadka soo dhacaan ama soo boobaan ama hanti ka soo qaadaan oo dabeedna ay xabsiga ugu soo galaan. taasi markaa waxay muujisay si joogta aad u arkaysaa in tirada dhalinyarada arrimaha ku lugta leh ay yihiin kuwa kor usii kacaya, noocyada daroogooyinka ay isticmaalayaana ay si soo bedelayaan aan ahayn kuwii markii hore caadiga ahaa la yaqiinay. Okay, marka waxay nagu soo kordhiyay baad leedahay noocyo hore oo aan la aqoonin, maxaa ka mid ah? waxay hadda nagu soo kordhaya noocyo weliba commercial oo ganacsi dadka ka keenayaan, siba Ethiopia laga keenayo oo qeybaha kala duwan ee xashiishada ah, oo dabadeedna qiimo jaban ay ciyaalka ku helayaan. dib weyn markaa u keenay dhalinyaradii iyo ciyaalkii badankood reer Somaliland, kuwaasaa ku soo kordhaya. waxaa jira warbixino laga soo daayey gobolka Sanaag, Togdheer iyo Maroodi Jeex, waxay sheegayaan sanadkii 2019 inay qabteen 2396 qoraaradood iyo 9 jarikaan oo khamri ah. tiradaasi marka sanadadii hore loo eego way ka badan tahay. maxay tahay sababta maanta inagu baraarujisay in laga hadlo arrinkan? arrinkani waa arrin runtii aan aada looga hadal, waan kaaga mahad celin inaad barnaamijkan qayb ka dhigtay. khamrigu waa ka mid draagiska Somaliland soo geliyay, Ethiopia ka yimaada. khamrigii xashaduna waa wada socdaan, inta badan isku meel baa laga soo geliyaa, isku ciidina way soo geliyaysaa. isticmaalka ay kolkaa draaga isticmaalayaan tiradiisu sii kacaysaana waxay keenaysaa addiction. waxyaabaha sii kordhin waxaa ka mid ah la qabsiga ay dadkii la qabsanayaan caafimaad ahaan, iyo faa'iidada ay ka helayeen dadkan soo gelinaya in dhalinyaro fara badan ay la qabi doonto. mar walbo dadka isticmaalaya ay bataan, dadkan soo gelinaya faa'iidada lacageed ay ka helayaanba ayaa kor u kacaysa. marka taasaa keenaysa runtii inay kor u kacdo. marka khamrigu waa ka mid, noocyada draagisku waa ka mid, dawooyinka sida qaldan loo isticmaalayo. marka addiction, qofkan xashishada caba markuu waayo matalan lacagtii uu waayo ama xashishada soo geli weeyo, inuu isku dayo inuu dawooyinka kale caadiga farmasiyada yaalla inuu isticmaalo si aan saxayn. Dr. Zaynab inala joogtaa, dhanka daawooyinka ee dadku isticmaalayaan Guuleed ka dhawaajiyey, maxaad ka aragtaan dhankiina idinku? horta wadankeenu ma laha in had iyo jeer meel lagula dhiilgareeyo caafimaad ahaan dawooyinka amba wax loo yaqaano substance abuse-ka, oo had iyo jeer waxaa jirta meelaha kale adduunka, had iyo jeer meelaha lagu daweeyo xanuunada maskaxda ayay ku leeyihiin santaro waaweyn, halkaasoo counseling loogu sameeyo dadku yimaadaan. laakiin inagu ma jiraan. laakiin waxaad arkaysaa badanaa markaad amba waadharka joogtid ambaba clinic aad joogtid oo kale, ayaad waxaad arkaysaa dad ay ku dhaceen xanuunadan HIV-ga oo kale ambaba Johnska oo kale qaba, ambaba qof loo keenay isagoo dhacdhacaya oo dawadii liqsan. inta ugu badan dee waxaa ismooga qofkii oo controlkiisa uu limeyn, deetana nugul yahay inuu kufo uu dhaco, deetana wax soo gaadhaan oo kale. marka meelaha waad ku arkaysaa, laakiin meel gooniyo oo lagu daweeyo amboo lagu garanayo ma jirto, aan ka ahayn inaad markaad la timaado xaaladaha aad daweynaysa inaad la kulanto qof dawada qaadanaya amba matalan oo kale farmasiga imanaya oo dawooyinka qaar iibsanaya sabab la-aan. ma jiraan markaa dawooyin gaar ah oo dadku aragteen oo dadku u isticmaalaan habab qaldan? dawooyin waxay ota substance abuse amba dawooyinkan drugs kala sheegay laba ay u qaybsamaan. qaar caafimaadka loogu talagalay oo dadku ay dabadeetana amba caafimaad loogu soo qoro markii hore, oo dabeetana waxa addiction la yiraahdo, qofku inuu la qabsi sameeyo, deetana dawadii ka daba tago ambaba qof kale loo soo qoray ee uu isagu iska liqo, ambaba wuu maqlayo qof ay saaxiib yihiin baabasiyo ku matalan oo kale hurdayaraanta ka daweynaysaayoo kale. kuwaas marka waa dawooyin jira oo caafimaad ahaan loo isticmaalo, laakiin qofkii uu si khaldan uu isticmaalayo. qaar kale baa jira iyaguna oo la yiraahdo substance abuse oo aan loo isticmaalin, oo sida dawooyin sida marijuana oo kale
kokaayinka oo kale way fara badan yihiin LDXTC la yidhaahdo dee meelaha kalaabadii waxaa lagu iibiyo marka way jiraan dawooyinkan ugu badan ee la isticmaalo waxaa kamid ah dawooyinka qufaca oo kale loo isticmaalo oo kadiina ay ku jirto waxaa kaloo jirta dawooyin diasaban loo isticmaalo oo hadii jeer qofka hurdada iyo muscle relaxant waxa la yidhaahdo Soomaali kuma garanaya loo isticmaalo dawooyin kale waxaa jira opioid la yidhaahdo oo hadii jeer xanuunka qofka uu lu qaato oo kale kuwaas oo kale waa dawooyinka ay dadku bila sababta u qaataan iyagoo doonaya inay markay waayeen xashiishadii ambaba addiction ay ku noqon kareen dawooyinkaas inta badan waan aragnaa daawo waxaa jirta aad magaceedan runtii la yaabana big power la yidhaahdo dawadaas run waa la iska iibsadaa big powerka bredonsalonka laakiin dawooyinka waxaa loo cunaa had iyo jeer hablo say iskugu naaxiyaan waa dawooyin runtii hablo badan galaaftay oo dhimashadeeduna aana yarayn waxay isku dayaan hablahaasi inay isnaaxiyaan dawooyinkaas had iyo jeer waxaa loo qola xaalad reera oo adag dhowr dawana way isku daraan oo loogu talagalay qofku markuu jidhka difaaciisu la dagaalamo xaalado markay naqasku qabto oo kale ah marka had iyo jeer waxaa boorni maaha haddaad aragto qof isku naaxiyey oo aad taabato wuu bararsan yahay waxay keentaa wax loo yaqaano water retention oo biyihii jidhka ka baxayay ay dib u celisaa oo jidhka ku haysa meelaha qaarna qofku wuu ka buurnaadaa uun sida inta sare oo kale wejigiisa sida cadceed noqdo oo kale lagu hoo yaryaraada marka dawooyinkaas waa dawooyinka u baahannahay in at least aanay helin dhalinyartaas amba warqad Zainab big power waxaa loogu talagalaa salba loo qaato big power waa vitamin laakiin kaasoo keliya tama qaataan laba dawo bay had iyo jeer ku dhalaan mid la yidhaha dexamethasone ama prednisolone labada dawo waa steroid baa la yidhaahdaa oo waxaa soo daaya qanjir jidhkeena loogu talagalay had iyo jeer deetan laba xaaladood baa dadka la siiya markuu qanjirkaasi uu soo daayin waaya dheecaanka because waan u baahannahay jidhkii iyo mar uu qofku jiro waxaa jira jidhkeenu dadka qaar ilaahay uu difaac baynu haysan hargabku markuu inagu dhacayna caadi noqon difaacaasaa jidhka qofka la dagaalama caadiyan oo intii ka badnayd xadka ayuu keena marka xaaladaha reerka ayaa lagu daweeya qof markuu naqasku qabto kale COPD-da marka asma uu leeyahay asma allergy baa laga qaadayo kaloo dee oo xaalad adag oo kale ayaa qofka loogu talagalay oo weliba sa loo siinayaana waa si ka duwan siiha kale qofka waxaa lagu bilaabaa dawooyinkaas oo kale matalan subaxii habeenkii baa lagu bilaabaa kadibna waa laga joojiyaa subaxoo keliya baa la siiyaa marka dambe waxay noqotaa maalin dhaaf in loo sameeyo oo taabarin baa la yidhahdaa oo si aanu u fashilmin keliyihii ka xanuuno fara badan oo dhibaatada nagu haya dawooyinadaas baa kala jira amba dhalinyaro ha noqoto amba hablihi ha noqoto iyo koonaya matalan waxyaabaha fanigankaad waxa weeyaan diracu ii qabanayaayo oo kale oo waa naaxaya garbaan samaysanayaayo oo kale runtii laakiin aan lagu baraarugsanayn xataa walow ay jiraan asxaabtoodii amba dadkoodii oo dhintay haddana still xaraga xanuun oo kale amba xaragiyo dhimashada kulliba waan dhimanayaan si xaragooda oo kale aad mooda fariinta gudbinayaan inay tahay taas waxay dib ugu noqonaysaa quruxda waxa loo yaqaano oo bulsho waliba gaarkeeda hibaaq adu macluumaad baa tahay isticmaalka daroogadu sidee u saamaysaa ardayda ardayda horta badan waxaa jira daadu sheegay guuleed baa dahda ugu karaamka badan maxkamadda la keeno markay dhalinyarta yihiin 18 ilaa 20 waana da-da waalidku badanaa uu ka hadhu moodo inuu ilmihii la qabsaday waxbarashadii iskuulkii ismaamulkii amaba qalqaaliya ka arkaan oo ilmihii isaga laftarkiisa soo fahmaya uu waalidkii moodo inuu gaadhay faraha uu ka qaadaya inuu dhibayo kale u keenayo waliinta qaar ba waxay sameeyeen boodhinada iskuullada imika waliba dalka kusoo kordhaya boodhinka ee la seexiyo ilaa wiig oo dhan lagu haynay ayay geeyaan iyagoo ka filanayna halka marka caruurta la geeyo ay kaga nasanayaan iyaga at the same time iyaga lagaga haynayo wixii xumaanay ku sameyn lahaayeen dibadaha laakiin boodhimada laftirkeeda ayaa hooy lagu iibiyo daroogada iyo waxaana ay Zainab iyo Guuleedba sheegeen taa marka laga imaado iskuulka laftirkiisa ayaa ilmihii wuxuu xaalado waxaan arkayo kale ilmihii inuu sanad dhanba iskuulkii dhiganayay ee waalidkii madu inuu dhiganayay usoo xaadiraya marka sanadka dhammaado shahaadadiisii uu odhanayo hebel aabihii baana ama hebel hooyadii umoodii inuu ilmahaasi dee iskuulka tegaya sanadkaasoo dhan infact laakiin ilmahaasi aroo kasta uu xaafadoodu ka quraacanayo uu labisanayay lacagta baskuu ka qaadanayay iyo nusaacaha uu soo kala hayay meel kalu tegay daroogada iyo waxaana ku qaadanayay bisha markay noqoto lacagtii bisha ka qaadanaya si kayna inuu qof caadi oo iskuulkii tegaya laakiin isaga waxa kaga weyn in hadhato la kashifi doono xilligaa la kashifiya aan gaadhabe inuu xilligan imika waqtigan taagan dee inuu helo wixii daroogadii jidhkiisa la qabsaday u sameynaya taasna dabcan waxa weeyaan waalidiinta dee aan la socon caruurtii aan ka warhaynin oon iskuulkii la xiriirinaya iskuulkii oo ilmuhu waayaa ma uu tabaan ka dabagelin follow up ku sameyneen
dhanka iskuullada markaa maxaa policy uga yaala? dabcan iskuulladu way fara badan yihiin, qaar private jira iyo kuwa dowladda. kuwa aad adigu khibradooda aad leedahay? أنا horta iskuullada private kan ka shaqeeya badanaa oo iskuul dowladeed man ka soo shaqeynin. Iskuullada privateada laftirkooda ayaa si kala tayo fiican oo qaarna waalidiinta si monthly ayay la xiriiraan, bil kasta markay gaadho report baa laga diyaariyaa, ilmo kasta waalidku ku khasbay inuu yimaado oo isaga la arko, xataa hadduu qof soo wakisho ma soo diro lagama aqbalo. Iskuullada qaarna as long as waalidkani bishii soo dirayo arday مثلا oo kale xaaladaha aan lagu tabin ardayda waxa keenta in iskuulka kifaayadiisa gaadho, iskuulka asalkiisa ba arday badan haysto uu taban ilmihii ka baxa kulliba waiting list jirayo liiska qof lagu buuxiyo, oo hadduu waqti macayana inta uu dhaafo cishaano iman sidaaba liiska lagaga saarayo qof kale meeshiisa la gelin u baahnaan aan mas'uuliyad ka saareen inuu isagu follow up ku sameeyo waalidkii ka daba tago. Run ahaantiina laakiin wax qorshe ama sharciya ama rules iskuullada gaar oo ay samaysteen inay ku daba galaan ama caruurta dee lagu ilaaliyo. ilaa markaan waalidka daba gelis macnaheedu ilmihii badan ka leedahay, ilmihii dadan ka leedayna dee waana tallaabooyin qaadin. laakiin waxa inooga yaala ma jiro macalinkood dee ixsaanan minno isagu hor ilaahay isagu u dabagalo oo idhaahda ilmaha mana arag mooyaane. daroogooyinka kala duwan noocyadoodu way badan yihiin guuleed. qaadka oo kale oo dhaqankeenana aad ugu dhex milan, sharci ahaan ma ka mid yahay liiska daroogooyinka ma ku jira? qaadku Somaliland siba magaalooyinka waaweyn iyo miyiga aad buu ugu tiro badan yahay, dadka aad bay u cunaan. sharciguna kama dhigin xaaraan, daroogaduna kuma dhigin wax kaloo lagu restrict gareynaya ama lagu xanibayana muu samayn. taa macnaheedu waxa weeye ilmihii 10 jir ha noqday intuu soo iibsadaa buu cuni karaya. iyadoo dadka waaweyn ba dhakhaatiirtii ku sheegayeen halis weyn ku hayo maaragtay markaad aragtiin ma yaro ciyaal inuu soo cuno inay nolosha ka saarayso dib badan bay u keenaysaa. markaynu leenahay drug uma jeedno kaliya kuwa sharcigu xaaraantinimeeyey, xitaa kuwa laakiin wixii miri kale ah oo dhan caafimaad ahaan oo dhan drug oo dhan baa dhib ku haya ciyaalka. liisaska daroogooyinka sanad walba lasoo saaray markii ugu dambeysay inaga dhowr sano ka hor bay ahayd. qaadku wuxuu kaga jiray kaalinta 20aad. marka dee qaadku waa daroogo ka mid a daroogooyinka la isticmaalo, laakiin maandooriyahaas dee inagu lama macaamilno sidii wuxuu xaaraan yahay. dabcan taasi saameyn noocyo bay ku yeelanaysaa ardaydii. horta macalin ahaan xataa markaad maalan ka sheekeyni sida ilmahaad ku leedahay qaadku ma fiicna, anaka challenge wanaga to ilmaha dee wuxuu arkaa bihii cunaya. markaad ku leedahay qaadka waa qalad maahana jaad cunti maasa wuxuu ku oranayaa soo kaabahay cunaa ama walaalkay cunaa ama qof kaloo reerkooda ah. so adigay kugu xidhanta markaasaad haddana la sii dhiil karin so inaad adigu qaanuun kuu gaara soo saaratid ood ilmaha kaga dhaadhicinsa inuu waxaan aan ahayn. aabaha khalday ina kuma odhan kartid? mana odhan kartaa aabaha khalday because aabihii ma khaldan hade adiyanda aabihii. laakiin waxaa jirta oo kale imanka oo kale marka ardaydan imanka iskuulka jarasay waxaan laga yaaba badankoodu inaan weliba intan dambe laleeyahay marka daroogadu way jabtay oo magaalada kusoo badatay laga yaaba waxa ugu weyn ilmuhu sameynaya iskuulka u jaray waxaan usoo sameynaya waxa weeyaan jaad buu soo cunaya xilliga. so marka intii iskuulka uu tegi lahaa kolley waqtigiisa ilaa xaafad kale uu soo jooga ma jira, intii isfahmeen filinka soo ogaayeen bay israacayaan meel bigood soo joogayaan kusoo qayla soo dhamaysanayaan way imanayaan. waxaa kaloo jira in ilmuhu keeno oo idhaahdo trip baa jira loo baxayo, waalidkiisa uu beenahii ku barto uu idhaahdo trip baa jira ama meel baa loo baxay ama tiim kubada la sameeyo waxbaa la ururinaya ama macalimiintii baaba naga raba intaasoo lacag oo waxba lagu sameynaya. waxaasoo dhan waxa weeyaan siyaasadu ilmuhu ku dhex bartayun daroogadan jaadka uu kowda ka yahay iyo inaanan dee adigu aanad laftarkaa aanad kala garan karin inuu ilmaha soo qaylayen kale because dadkii baa wada qaylaya de anuu shakhsiyan ma aqaan marka qofku qaylsan yahay sama garan kara hadduu arday saaka imaado klaaskayga isagoo qaylsan. inkastoo imika inamada qorahayn yani maca hablihi special secondaryada qodob muhiim halkaas weliba inta badan qaad iyo madarooga marka laga hadlayo inamadun baa la awooda la saara. ma yani waxaan garanaya arday guri karaasta oo isku imaado ama iskuulka waqtigeeda ama iskuulka xilliga ka dambeysa ayaa halkaa hablihiina maba weeyaan gurigana hablaa karaasta. marka maahun secondary ilaa jaamacadihii marka wuxuu noqday wax dabiici jidana. carabta ayaa kuwa qoladan shawaamta ayaa sigaarka iyo shiishadii wada cabaan raggoodii dumarkooda. beri dhow haddii saa lagu sii socdo dee caadi bay noqonaysaa inay inantu markuu ku idhaa jaadka sigaarka bakti ama jaadka maxaad u cunaysaa inay ku tiraahdo waa xorriya shakhsiya. dabcan waxyaabaha soo kordhaya ama trendska soo badanaya. Dr. Zainab, urur dhakhaatiirna waad ka mid tahay dabcan oo marka laga tago
shaqooyinkiina gaarka haddana dee dhammaantiin waxaa tihiin u adeegayaal bulsho baa tihiin ama social activist waxaa loogu yeedho wax wacyigelina oo aad samaysaan idinku ma jirtaa urur ahaan? horta wacyigelintu way yartay dhinac walba ha noqoto sababo badan aawadeed. waxyaaba badan waxaan kuu saamaxahaynin horta cultureka ama dhaqankeena se guud ahaana waxaa jira waxyaabo lagu shaabadeeyey in gaal uun ay ka dhacdo, waxyaabo lagu shaabadeeyey in aanan inaga shuqul inagu lahayn, waxyaabo ay tahay inaan laga hadlin oo kale. marka matalan oo kale xanuunada qaar ha noqoto, daroogooyinka qaar ha noqoto, noloshiisa noo noolyahay waxyaabaha qaar ha noqoto, xanuunada qaar xitaa ha noqoto. imka kansarka oo kale waad aragtay qofka xitaa hadday ku dhacdo waa la qarinaya. marka horta waxyaabaha qaar ee wacyigelin adaabad odhan lahayd samee waxyaabaha ku xanidaya waxa bulshadaada aaminsan tahay. saasay tahay haddana walow aanan ka hadlin daroogooyinkan iyo qaadka, laakiin ururka hableen ka tirsanay dhowr goor waan ka hadalnay dawooyinkan habluhu ay isku naaxinayaan oo qoraalo waan kasoo qornay dhowr goor weliba maraan aragnay in 2 hablood maalinkooda dhinteen cisbitaalka cisbitaal weyn qaybta xumada ee dumarka aan aragnay waan kusoo qornay dhowr qof oo waxba laga qaban kari waayo kaliya iyo fadhiista markaan aragnay dib baan ugu soo celinay. marka horta qaybta wacyigelinta walow waa yar tahay laakiin waan ka qayb qaadanaa. guuleed waxaan ku weydiinayaa daroogooyinka in laga hadlo sideedaba maxaa keenay in noqoto wax ceeba ama aan bulshada dhexdeeda caadi ka ahayn? bulshadeenu waa bulsho ay aada u maxaafida oo ay ku adag tahay waxyaabaha aanay hore u qoonin inay ka sheekaysato. conversationka o dhan ba iska xidhan, marka in laga hadlo daroogooyinku taabuu bay noqotay. marka muhiimka hadda doonayna waxa weeye in sheekada la bilaabo oo la arko sababtan saawleyna waxa weeyaan hadda xabsiga tagtay ama daruurta igu timaadid maxkamadda dadka joogo dhama waa dhareero ciyaalo mustaqbalka ummadda waxay u xidhan yihiin ama waa qaadkaasoo qabatimeen ama darooga nooc kale intay qabatimeen dembi ku galeen ama ay ummaddii ku boobayaan oo dadki wax u geysanay xaafadii baa xitaa ammaan noqon waayey draaga xiriirka ula leeyahay darteed. marka waa aad bay muhiim u tahay bulshadu qoys ilaa xukuumad shacab in la bedelo nidaamkaas. waayo haddaynu ummad dadkeeda waaweyn siba raggii qaad u fadhiyaan oo draagir yihiin ay kusoo biirto dhallinyaradii soo kacaysayeen inay draagir noqdo dee waxay noqonaynaa bulsho yaro fadhida meel oo ma badbaadi karayno inaynu ka baxnaa dhibtan way nagu adkaanaysaa. marka maadaamay hadda cusub tahay siba dhallinyarada ku cusub tahay waxaan qabaa in dadaal badan la geliyo, in resource la geliyo, in wasaaradu ka wada shaqeeyaan. waxyaabahani wax ka miyiin waxaan su-aalaan hal hay-ad wax ka qaban karin waa in wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda dhallinyarada, dowladaha hoose waayaanu dhibaatooyinkan dareemayay qaybka draaga maxaa keenaya wax ka mid a ciyaalku meelay ku cayaaraan iyo wax ku qabtaan male. marka iskuulaadkeenana xilligan la dhigtaa aad bay u yirihiin 2-3 saacadood baa la dhigtaa. marka markay ka soo baxaan iskuulkii meel qabtaan ay garan waayaan gidaaraday fadhiisanaya deedna kooxaa abuurnaya iyo intii isku daayeen biirka ayaba meel bay isugu imanaysaa oo sheekaysanaysaa dabeedna markaasay bilaabaysaa inay iyaga institution yar noqdaan. marka haddaan hay-adahaasoo dhan wax ka qaban bulshada wacyigelinta bilaabeen culimmada laftigooda aanay qayb weyn ka noqon masaajidadu aanay aad si positive ah because markastoo la maago la ceebeeyo way sii cararayaan. laakiin markastoo la yidhahdo seebaa loola shaqeeyaa oo dhibtan waa mashaakil dawo sida sinab sheegayso dadkan markay galaan jirkooda markay gasho ma sahlana inay ka baxaan hal mar haddaan la caawin. waxaasoo dhan baa u baahan markaa in la iska kaashado. bulsho ahaan sidee loo fahansiin karaa ay kula tahay inuu daroogadu mashaakilaadka leedahay horta sida waa guulad sheegaya caruurtu dhalin intaan lagu amrinayna waxaan faraha ka wada qaadan wayna wax lagu maaweeliya helaan wayna meelaha enerjigoodan hayaan iyo daaqadan ay ku farariyaan wayna helaan wayna iskuullada iyo waalidiinta bulshada culimada dowladda xeerar adag weyn lasoo saaro dee waxyaabahaasoo kale xad u sameynaya ilmaha intaa leeg inuu garanayo ayaaba mushkilada meeshuu ka helay daroogada noocaas. jaadkoo kale imika sharciyan baabana uba haysanba inuu xaarayo meel kasta laga helaya kaasoo kale kama maanici karti oo sida dukaanka waxyaalo kasoo iibsanayo. so waalidku inuu markasta la socdo ka warhayo ilmaha attentionkiisa iyo maxaa isbedeladiisan kala duwan uu la socdo. caruuraha qaar baa markay marxaladda weliba teenagerka markay yihiin badana waxaa la moodaa inaan la kantarooli karayna waa la fogeeya taasaana keentay inay sii fogaan damaro sii fogay sida faraha kasii qaadina damar inuu waxyaabo badanood adigu soo qaban kareen heer yani aanad adigu kusoo qaban kareen uu gaadho. sida imakoo kale markaad xaggaasoo kale waxaad lagaaga baahaya waalid ahaan inaad soo dhaweysatay ilmihii la sheekaysatid waxaad ugu bedeshid adigoon wixii kuga cabsiinayn ama ku nacsiinayn oo sidan si positive iyo guuladirin waxaan looga wacyigeliyo dadka
positifeka waxaa loo jeeda inaanad wixii nacsiin oonad ka dhigin qofka waxaa sameeyey inuu diintii ka baxay ama uu reerkii ka baxay ama aanu anymore ilmahaagii aanu ahayn laakiin bilcagsi waa ina markuu khaldamo aad toosid waa ina markuu fogaadaba aad soo dhaweyso waa ina markaad ka darintid ba inuu attitudekiisa isbedelay ama uu dad kale waa inaad la socotid asxaabtan uu raacaya waayo xiliyada kooxahan banaanada fadhiisanaya waa inaad xiliyada ay fadhiisanayaan aad ilmahaaga la socotay inaanu fadhiisan dadkan uu la socday meelaha la tegaya kale waa dad gaaroonad kulligood maaha so waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay inaad adigu mar kasta hortaad fiirsatid aad fahamsantahay ina ilmahani marxaladan uu ku jira waa maxay iminka tusaale ahaan oo kale boodhinadan dee waalidiintu waxay u geeyeen inay kaga reystaan dee dabagalkiiyo dee shaqooyinkoodii kaga habsaamaynta hebelba waxaa sameeyey soo carartii lagu lahaa badanaana aabbaha go-aanka gaadhay ina ilmaha boodhin la geeyo boodhinadu waa hooyga xumaan kasta iyo akhlaaqa daro kasta iyo ilmaha xataa cuqdadba ku dhalata ah waa lagu soo tuura halkana lagu keenee caruuraha qaar baaba cinaad u sameeyaba waxyaabahan sameynayaan oo odhanaya kolley dankama leh ama wuxuu soranaya marka qurato tensionkiisa aad helaysidba ee waxaa samee oo waxaan qabo waxaa kharibo waxaa dhexgal so badana wallaahi fogaanshaha ayaa keena inuu ilmuhu sii fogaado ama waxaan kusii fogaado boodhinadoo kale boodhin wanaagsan miyaanu jirin wallaahi bema shayga haddaan idhaa boodhin wanaagsan baa jira leanna boodhinku asalkiisaba in general meel kastoo adduunyada dee waxa weeyaan meel dad dee aan isgaranayn iskugu yimaadeen wax kasta ka dhici karayaan raqaabad baa jirta waxa la idhaha yacni ilaaladaasna mar kasta way kulliyiin oo dad ay dhaleenna maaha waa dad lagu yiri intaasoo ardaya ama intaasoo boqol ardaya ka warhay oo wada kala duduwan oo kala akhlaaq backgroundkooda tarbiyadoodii kala wada duwanaayeen so marka anigu maba haysano boardinku xaliya in general doctor Zainab adiga maxay kula tahay sidii bulshada loo faahsiin karaa khatarahan ay leeyihiin maandooriyayaasha soo badanaya horta waxaa wanaagsan inuu qofku ogaado caafimaad ahaan maxay ku keenayaan dawooyinkani ilmaha yar u cunay maxay kaga duwan tahay ilmaha qudrad kusoo iibsaday iyo ilmaha amba jaad kusoo iibsaday amba dawooyinka kale kusoo iibsaday caafimaadkiisa ahaan iyo bulsho ahaanba walow ayna midhmidh wada geli karaynin laakiin haddana dawooyinkan waxay ku leeyihiin saameyn maskaxdii waxay ku leeyihiin koritaankii waxay ku leeyihiin habka qofku uu neefsanayo waxay ku leeyihiin calooshii waxay ku leeyihiin socoshadii tusaalahaan imika dadka ugu badan markay dawooyinka qaataan waxyaabaha kamida waxaa kamid a in qaabkay hurdada u heli laayeen ay noqoto totally mid khaldan qofkaas amba uu hurdaya amba hurdo uma baahna because dawooyinka qaar baa kala duwan qaar baa loo yaqaana stimulant iyo qofka awood siiya markaad aragteen nimankan booyadaha shuba habeenkii oo dhan way soo jeedaan maalintii oo dhan way soo jeedaan kuwa shilalka gala haddaad aragteen marka qaar la keeno waxay isku dayaan wax soo jeediya kafeega maxaynu u cabnaayo kale waa wax ku soo jeedinayo kale marka qofkii hurdo ma helayo qofka hurdo haddii waaye halis wuxuu yahay xanuunadii maskaxda ku dhacaya ee kala duwanaa waxaa dhacaysa mararka qaar qofku inuu cunno badan uu cuno marka qaarna aanu cunnoba cuninba waxaa ku dhacaysa qofka inuu muurkiisa isbedelo mar wuu faraxsan yahay oo wax kastoo la weydiiyaba haabuu samaynaya marna wuu cadhaysan yahay cadhadaas waxay keeni kartaa inay qof kale islaayaan dabeetan halkaas dhibaato ku dhacay isagii la dilo amba qofkan kale uu dilo amba wada jarimooyinka kale uu soo sheegay in guuleedu qofka ka samaysmo waxaa dhaca qofkii wuxuu noqdaa qof isla hadlaaya mararka qaar bay yidhahdaan waxaanu maqlaynaa kalarada dadka qaata xashiishadaha qaar kuwa maarjawaanadoo kale baxasida qaadkoo kale la duubo amba kuwa kale sida buurigoo kale dhan kala geliyo kale wuxuu kugula murmayayo kale inuu kalar maqlaayo arkay waxaanad adigu arkaynin waxyaabaha kale kamid waxa laga yaabaa in muruqiisan oo dhan uu wada shaqaynayo qaar baa kansar keena sanbabada oo kale dawooyinka nikotiinku ay ku jiro oo dhan waxay keenaan sanbabada xanuunada laabta ku dhacdo oo kale waxay keenaan inay markay cabsan yihiin ay dhacdhacaan oo kale marka waxa fiican bulshada horta ilmaha yar hooyada inay u fiirsato ilmaha yar haddii hooyadii aragto ilma yaroo hurdo waqti aan dadku hurdin kacaya waqti aan dadku kicin maqan inta badan ilmo marna iska faraxsan marna dhibaat haysato ilmo xumadoone ilmo indhuucas yihiin oo kale waxyaabahaasoo dhan horta hooyadu way ku ogaan karaysaa ti kale laakiin muhiimsa waxa weeyaan dawooyinkan ilmaha yar uu qaadanayo waxaa jira caruur bugta oo matalan kale xanuuno dawooyin loogu soo qoray deetana amba haddii ciil qabto waxay u fiirsanayaan dadku biniaadanku waa maskax way leeyihiin waa dad intelligent waxay u fiirsanayaan dawooyinka markay liqayaan xanuunada inay iloobayaan ciil kaambi haddii uu hayo kale inay ku iloobayaan marka qaar inay balashar iyo farxad ka helayaan sida dawooyinka opioids oo kale waxaa oranaya dawadii maalintii lagu siiyo wallahi farxad baad ka heshay adiga qiiqsan isku day maantana berina isku day kadibna addicted buu noqonaya dadkuna way ku kala duwan yihiin sida hormoonaka jirkeena ugu kala duwan yihiin qof soo xibsto qof aanu soo
fahmin qofba markiiba la qabsanaya 2 cisho 3 cisho marka uu liqo marka waxay u baahan tahay in la ogaado dhibaatada ma xataa ilmihii oo kaliya ay da family ku yeelanayso oo marka ilmihii yaraa la xidho hooyadii way taagan haddii cid soo dilo iyadii bay taagantay qof dhan oo mustaqbalkiisa la sugayo ugu yaraan haddaan cid kale anficin isagu ay anfacayo marka waxa fiican in hooyada xaaladahaas oo kale caafimaad ahaan ilmaha oo kale la socoto kale muhiimka waxa weeyaan in wasaaradda caafimaadka tusaale ahaan oo kale ay samaysato qorsho farmasiyo gooniya lagu iibiyo dawooyinka halisahaas oo kale tusaale ahaan hablahan dawada isku naaxinayaan oo kale maaha dawo in farmasi kastaaba uu iibiyo in farmasiyo gooniya lagu iibiyo waliba prescription iyo shaabad mooyaan aan wax kale lagu iibin walow ay adagtay qof horta usoo diyaargaroobay naftiisii in ay uu dee qurux ka doorbido dhimasho ay adagtay inaad joojiso laakiin haddana waxaan qabaa dad badan ayaan wacyigelin ku jirin oo baqan lahayd haddii dhimashada loo sheego waxaa kaloo muhiim inay dadku fahmaan marka laga yaabo dhibaatadan ay keenayaan xataa dadka qaar markuu kaniinka cunaan wadnuhu istaagayo dhinta waad aragteen dhiikarku korbu u kacayo iyagoo yaryaroo 20 jir 25 jir bay dhiikar yeeshaan macaan bay yeeshaan oo ku dhaca xanuuno fara badan waxaa kaloo muhiim in la ogaado xanuuno kale inay daba socdaan labada xanuun ee Johnska bida iyo sida la yiraahdo lagu kala qaado midna xitaa hadduu guursado hadhowto iskabadaya dalkii caruurtiisa gabadhiisa halis bay tahay qaado haddii aan la ogeyn oo kale midna wali mid uu talaal leeyahay laakiin haddana in dhibaato ugu filan qof dadkeenu dad caafimaadkooda la socdo maaha HIV baa jira qof markuu ilmo yara dawooyinkii cuno waxa jira dad suuqa ku jira si fiican uga faa'iideysan ilmo yara ma shaqaynayso maskaxdiisa ma joogo marka waxyaabahaas oo dhan inay bulshada ku baraarugto la iskana kaashado inta ugu yara familiga ilaa xagga ugu sarreeyay dawladda baa lagu joojin karaya dabcan maandooriyaashu qofka kaliya uma xumo qofka shakhsiga ah kuma koobna sideen wada ognahay bulshadu dhan bay saameeyaan waxa kor u kaca dambiyada taana in wax badan baad ka ogtahay kulay guuleed adiga nooga xoogaalsan wacyigelin badan baad samaysaan iminka mid baad soo wadaan dhawaan taasi noo sheeg waxay tahay waxa kale oo noo raacaysaa fariinta ugu dambaysa bulshada u dirayso waxaan hadda la bilownay in arrinkan ka hadalkiisa iyo wacyigelintiisa kor loo qaado si ay u suuroodeen maara loo helo dhawaan kolka kulan weyn baan qaban doonaa dadka khusayso dhan la isugu yeedhay ujeedaduna tahay in cid ay khusaysaana ka wada hadasho si xal u heli lahayd waayo arrinkan waa arrin cid quri waxba ka qaban karaynin isla markaana wacyigelinta bulshada laftigeeda la siinayo ay u gaadho si ujeedada waqtiga dhexe at least isbedel siyaasadeedna yimaado iyo shahaayadeed iyo kuwa sharciba habdhaqanka bulshada iyo si arrinkan u arki saanay u aragto haddaba dowladda lacag badan baa kaga baxda arrinka la dagaalankiisa dad booliiska u tagtid dhibti weynaan maalin walba la tacaamulayna waxay ku leeyihiin waxa weeyaan waa dhalinyarada yaryar laakiin qaabka approachka ah qaabaan ahayn qaabkiinu rabnay oo ah qaabkiinu rabnay waxa weeye xarigooda dani kuma jirto ka hortagooda inuu baahanay ama prevention waay mar walba ilmo yar la xidho 20 jira ama 20 jira wax weyn oo Soomaaliland lahayd baa jabay qofkaasi inuu bulshada ku soo noqdo isagoo sidii hore ka wanaagsan way adag tahay inuu sii noqdo hardcore dembigiisu ka sii bato fariinta ugu dambaysa bulshada u diray cid walba khusaysa waxa weeye in arrinka laga taxadaro inaan la sakran in laga warhayo in qof walba ilmihiisa jagareeyo ilmaha dariskiisa jagareeyo ilmaha uu yaqaan ehelka dhow leeyahayna uu jagareeyo oo hubisid kasoo bilow qaad ilaa noocyada kala draaga ilmahaagu ma ka yahay ma ka badqaba su-aasha is weydii laa su-aasha ka gungaadhidood hubsatid qof walba xalinaha ka seexanay wagaag hibaaq macluumaad baa tahay maalin walba ardayda la macaamisha marka iyaga de waxaad ku oranaysiisa aad u tarbiyadayso waa gaar bulshada kale maxaad fariin u diraysaa anigu waxaan la hadlayaa waalidiinta inta guuleediin ma naranaya inay ka warhayaan daba socdaan dhaqamadooda ilaaliyaan asxaabta raacayaan ay ka warhayaan iskuulkooda si toosa oo la xiriiraan ilmuhuna marku ogeyna waalidkiisu daba socdo laga warhayo uu ka baqdin badan moordan ilmaha kalena waalidkiisu dabagelin soanu waalidkoon la hadlaya waxaan leeyahay ilmihiina inaad ka warhaysaan markastood ka dareentaan inuu isbedelay inuu asxaab cusub raacay inaad ka wardoontaan xaafadaha ururadan lagu sameynaya in aaminsanaya anigu inay banaanadan ay fadhiisanayaan in aaminsanaya inay yihiin kow ka yihiinba in asxaabu suuga la sheegaya inay kuwaasna ka maanacaan waqtigoodana mashquuliyaan waqti faraaqahan uu helayaan haddii waalidku isagu la spend gareeyo especially abayaasha haddii waqtigooda la spend gareeyaan ama ha uba saaraanba meel ama oo ha kaxaysan amaba gurigaa la joogaan ilmuhu joogitaanka lala joogo ogyahay ayuu isku ilaalinaya aad baad mahadsan tahay waxaan aan ka hadlayo aad xasuusisay ururada ama guddiyada xaafadaha ka samaysan ee iminka aynu leenahay habeenkii kuwa gaarhka haya oo kale
ururo noocaas oo kale oo la samayn kara baa jira. Tusaale wanaagsan oo hooyooyin ay ka sameeyeen Sweden baa jirtay, hooyooyin Soomaaliya weeyaan. Marka waxay sameeyeen way isku yimaadeen habeenkii ay meelaha wareegaan. Marka 4 hooyo 5 hooyo oo xaafadda ka mid ah ayaa kolba habeen ku qoran. Marka waxay soo wareegayaan meelihii ciyaalku fadhiisanayeen iyo meelahay isugu imanayeen. nin waliba hooyadii ama saaxiibkii hooyadii waxba kuma odhan karayo, u kacaya, u yaacaya. Marka isbedel fara badan baa kusoo kordhay xaafad ka mid a magaalada Stockholm oo la yidhahdo Rinkeby. Waxaa yaraaday faldambiyeedkii habeenkii dhici jiray ama dhalinyaradaas ay samayn jireen markii hooyooyinkii banaanka usoo baxeen. Marka intay dhaldhalaalaya xidhaan habeenkii hooyooyinku ay iska sheekaysan jireen iyagoo wareegaya kolba xaafad, kolba luuq madow maray. waxyaabo noocaas oo kale waa la samayn karaa. wanaga gaarhkaba samaysanay. Dr. Zainab, adiga laftaadu dee si toosaad u siisaa wixii wacyigelina dadka ku imanaya ee aad daaweynayso ee peeshinkaaga. maxaad bulshada kale u diri lahayd fariin? horta bulshada markay noqoto caruur waxaa maleynaya guuleed iyo hibaaq baa dhameeyay, laakiin anuu hablahan fariin u diraya, hablahan dawooyinka isku naaxinaya qaata. horta qurux adduunka meel layskula ogolya ma jiro, ma buurniba ma dhuubniba macasanba ma madowba. imkaad arkaysaa mrs university in iyado madowgiiba ay qaadatayba. marka horta waxaan lahaa qofka biniaadanka inaad doonto inaad wanaagsanaato, qurux badnaato waa wax fiican, laakiin wixii caafimaadkaaga, caafimaad haddaad weydo qurux heli maysid. caafimaadka quruxduu ku jira, shaqada quruxday ku jirta. marka anuu messagekaygan gudbinaya waxa weeyaan hablahaas inay iska digtoonaadaan dawadaas, because baruurtan helisa maaha baruur, waa biyo waxa jirkaaga qabanaya ku jiraya. xanuuno fara badan buu ku keenaya, sidaad aragteenba xitaa ciddii idinka horreysay ha noqoto maqaarkaaga oo markastaba dhibaato ku dhaca. oo dee qofkii dawada isticmaal horta wuu iga xoog badan yahay, because the practical buu arkay. marka anuu xanuunla dawada ka waantooba, xaliqina dawada buurni iyo dhuubni midna qurux ma aha. ilaahay suu ku sameeyey baa qurux badan. inaad dawada ka waantoodaan. farmasiyadan inaanay iibinin far dhakhtar qoray waa la garanaya iyo siday u qoran tahay, laakiin ilaahay ka baqaan oonay dawooyin halsi ku jirto maalinta qiyaamaha la weydiinayo aanay qof si easy uga iibinin si fudud. waalidkuna inay ogaadaan in dawadan ilmaha yaran uu qaadanaya ay dhibaato ku keeni karta halistiisa, xitaa wadnuhu mar keliya ta istaagi karaayo. deetana ilmo kasta oo ay dhaleen ay ugu daraan oy ka wacyigeliyaan dhibaatooyinka dawooyinkaasi leedahay. ilaahay ku anfaco talooyinkaasi. runtii de waa mid qofka shakhsigaa toos ugu tegaysa talooyinka noocan oo kale ahy. laakiin isbedel inuu yimaado waxaa dee sababa in sida guleedba sheegayay ay isu yimaadaan qeybaha kala duwan ee bulshada noocay doonaan ba ahaadaan. marka taasna waa mid inoo dhiman oo rajeynaya inay dhowaan inoo suurta gashay insha allah. saddexdiina waan ku mahadnaqaya runtii dadaalka aad bulshada uga jirtaa, mid waliba qeybta uu bulshada kaga jiro iyo sida wacyigelinta aad u wadaan. aad baad mahadsantahay mar labaad. guuleed dafaac oo ah qareen, Dr. Zainab oo ah doctor, iyo hibaaq laari oo ah maclimad. aad baad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.